bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay kuusoo biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran legreshter grey araahdaadi waxay kula tahayna ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibadaada dhacdooyinka warbixinada halkan idinkugu hayno haddii alwenraalo ka noqdo waxyaabaha daaban doontaan waxaa ka mid noqon doona indha qarshe oo markaasi taliyii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo diiday kursiga sumadiisu tahay hob eber 20 ee xildhibaannimo ee beeshiisu yaa u diiday maxayse tahay sababta loogu diiday xogo ay warbixinayna kaga haynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya wasiir Beyle oo ballanqaad culus u sameeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed xogo ay warbixinayna kaga haynaa ballanqaadkaasi waxa uu daaran yahay iyo doorashada kursiga Fahad Yaasiin oo la dalbanayo in Muqdisho lagu qabto miyay suuragali karaysaa in magaalada Muqdisho Soomaaliya caasimada uu lagu qabto kursiga Fahad Yaasiin xogo ay warbixino ayaan idinkaga haynaa waan idin bidhaamin doonaa daawadayaal saaxiibayaal qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan halkan oo nuxurka wararka ah ku soo dhawaada daawadayaal haddii aad ku cusub tahay ku soo biir adigoo subscribe saaraya like garanaya share garanaya araahdaadu waxay kula tahay ka dhiibanaya aynu ku bilaawno taliyii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarayagaas Daahir Aadan Cilmi oo loo garanog yahay indha qarshe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho wariyaashana la hadlay ayaa sheegay in loo diiday u tartamida kursi lambarkiisu yahay hob eber 20 indha qarshe oo kamid ah musharaxiinta u tartamaysa kamid noqoshada baarlamaanka 11aad ee dalka ayaa sheegaya in maamulka Galmudug ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Goorgoor uu ka hor istaagay inuu u tartamo kursi ay ku sharaftay beeshiisa sida uu hadalku u dhigay waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed in maamulka Galmudug uu ii diiday kursigii ay reerkayga markaasi ugu maamuuseen ee hob eber 20 ayuu yiri taliye indha qarshe musharax indha qarshe ayaa sidoo kale xusay in arintan ay ku noqotay mid lama filaan ah maadaama uu sanado fara badan uu soo shaqeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxay ugu noqotay arin fajac ah maxaa yeelay nin intaas oo sano u shaqeynayay qarankiisa bilada badan lagu abaalmariyay wax muuqda u qabtay in la yiraahdo ma istaahishid sababta waxa weeye aniga kuma jecel ayuu hadalkiisa markaas intaasi u raaciyay taliye indha qarshe oo xildhibaan daydayay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxa markaasi isweydiin leh yaa waayay qofka lagu abaalmarinayaa ma waxa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka la siiyo mid aan weligii waxba u qaban Daahir Aadan Cilmi indha qarshe oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cadaalad daro weyn ay ka jirto Galmudug isla markaana ay ka socoto gardaro iyo bahdilaad way muuqataa inay cadaalad daro ka jirto meeshaas way muuqataa inay gardaro meesha ka jirto way muuqataa inuu bahdil meeshaas ka jiro ayuu markale yiri taliye indha qarshe Sarayagaas indha qarshe ayaa u soo jeediyay beeshiisa inay ka tashato ayaheeda iyo sidoo kale ka sii mid ahaanshiyaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan reer tolkayga u soo jeedinayaa warsaanna ma qabatee maxaa tala ah waxaan talo u soo jeedinayaa inaan ka tashano ka sii mid ahaanshiyaha maamulka Galmudug ugu dambeyntii wuxuu fariin culus u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudiyada doorashooyinka isagoo ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga uu tartamayo ee sumadiisu yahay hob eber 20 inta xal rasmi ah laga gaarayo muran ka hareeyay kursigaasi oo ay beesha markaasi jananku iska leedahay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ballanqaad culus u sameeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa ballanqaad culus u sameeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabad loogu mahadcelinayay ciidanka ammaanka qaranka Beyle ayaa sheegay in dhammaan askarta booliiska Soomaaliya loo sameyn doono mushaar kordhin markaasi galayso mushaarka ciidamada raashinka iyo gunnada ay qaataan si loogu abaalgudo waxqabadka ay la yimaadeen wasiirka maaliyadda ayaa xusay in booliiska Soomaaliya uu si weyn uga shaqeeyay amniga doorashooyinkii lagu soo gabagabeeyay caasimadda loona baahan yahay in la dhiirigeliyo waxaan balan ah in markaasi waxaa balan ah ilaah baa wax waliba og in waxa
aad qaadanaysaan wax lagu daro ayaa talada ku jirta. Raashinka in la kordhiyo, gunnooyinka oo la kala bedelo lana kordhiyo, iyo mushaaraadka in wax lagu daro haddii Alle waxna siiyo, ayuu yidhi Wasiir Cabdiraxmaan Beyle. Ma shaacin wasiirku xilliga rasmiga ah ee uu dhaqan geli doono qorshahan mushaar kordhinta ah iyo xaddiga la gaarsiin doono intaba. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay ciidanka booliiska iyo saraakiishooda inay markaasi sii kordhiyaan dadaalkooda ayna xoojiyaan mas'uuliyadda ka saaran amniga guud ee dalka. Haddii uu qorshahan hirgalo ayaa waxay markaasi dhiirigelin xooggan u noqon doontaa dhammaan ciidamada booliiska ee ka shaqeynaya ammaanka dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa markaasi ciidamada booliisku ay markaasi kordhiyeen howlgalladooda ka socda caasimadda si looga hortago falalka liddiga ku ah amniga inta lagu jiro doorashooyinka kala duwan ee ka socday magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaasi ay markaasi ahaayeenba kuwa xildhibaannimo. Doorashada kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la dalbanayaa in Muqdisho lagu qabto mar kale. Khalid Maxamuud Gaabane oo ka mid ahaa musharaxiintii sheegay in laga hor istaagay tartanka kursiga beeshooda ee Hob Ewer 86 oo taliyihii hore Niza xildhibaan Fahad Yaasiin uu kusoo qaatay amaba kusoo baxay magaalada Beledweyne, ayaa soo jeediyey in doorashada kursigaasi lagu qabto magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada ciidanka cirka ee Avizioni. Ninkan ayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay ku taageerto raadinta xaqa, maadaama sida uu sheegay kursiga uu degdegayo uu yahay albaabkay ka bilaabato cadaalad darrada doorashada boobka ah ee ka socota dalka. Waxaan hortaagannahay ubuucdii ay ka soo baxaysay sharta iyo boobka doorashooyinka. Wax kasta oo qalad ah oo doorashadan ku saabsan xudunteeda waa kursiga Hob 86 ee boobka iyo dhaca ku sheegtay taliyihii hore Niza ahna la taliyaha amniga madaxweyne hore Fahad Yaasiin, ayuu yidhi musharaxan. Khalid Gaabane ayaa sheegay in xafiis kasta oo dowladeed ay u tageen dacwadda la xidhiidha boobka kursigaasi, balse ay ogaadeen in xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo kan guddida doorashooyinka heer federaal intaanan ahayn in laaluush ay ka qaateen Fahad Yaasiin. Ummaddii oo dhan waa la iibsaday, waana la gumeeyey. Cidna kalama hadli karto xaqaagii. Qof kasta wuxuu fiirsanayaa shilimaad uu jeebka ugu riday nin aan u soo dhididin lacagtaas. Haddaan laga hor istaagin amaba aan laga hortagin laaluush qaatayaasha iyo kuwa laaluushka bixinaya, khatar ayaa nagu soo wajahan, ayuu yidhi Khalid. Wuxuu intaasi kusii daray in dad badan ay ku doodayaan inaysan jirin sabab loogu dhego kursiga Fahad Yaasiin oo keliya, iyadoo ay jiraan kuraas badan oo sidaas oo kale loo soo qaatay, balse wuxuu ku dooday in cadaalad darradaasi oo dhan uu horjoogo u yahay Fahad Yaasiin, sidoo hadalku u dhigay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay garab isiiyaan. Waxaan doonayaa inaan soo xiro albaabka cadaalad darrada. Meesha aan beegsanayno waa halka laga soo abaabulo cadaalad darrada doorashada iyo in markaasi la isboobo. Albaabkaas ayaan iska xiraynaa. Ugu yaraan waxaan qoraynaa taariikh ah in cadaalad darradii markaasi dhacaysay qayb ka mid ahi aan hor istaagnay, ayuu yidhi musharax xildhibaan Khalid Gaabane oo markaasi ka cabanaya in loo diiday inuu tartamo kursiga uu kusoo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo iminka xildhibaan dooran ah ee 86. Ninkan oo ay wadaag hoose yihiin Fahad Yaasiin ayaa markaasi ahba mid si weyn maalmahan fagaarayaasha iyo warbaahinta kaga dhaleecinayay, isagoo markaasi dalbanayay in markaasi kursigaasi laga soo dhiciyo. Iminka waxa uu dalbanayaa in caasimadda Muqdisho, gaar ahaan garoonka ama xerada Avizioni lagu qabto, laakiin waxay markaasi dhacdooyinkaasi oo dhan ay noqonayaan kuwa siyaabo kala duwan loo arkayo. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dagaal xooggan oo dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha wajahaya, waxaana markaasi dadku siyaasaddu indhindheeyay sheegayaan in dagaalka ninkan uu markaasi ka socdo dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha oo si weyn markaasi u riixaya arrintan. Si kasta oo xaaladda noqotaba, kursi horeysa ayaa markaasi la diiday kursiga Fahad Yaasiin, iyadoo markaasi la fasaxay 5 kursi oo maalintaasi Beledweyne 6 kursi oo maalintaasi Beledweyne lagu qabtay 5 ka mid ah, halka midka Fahad Yaasiin la sheegay in la buuxin doono amaba dib u eegis lagu sameyn doono amaba aan la soo hadal qaadinba doorashadaasi. Si kasta oo xaaladda noqotaba, guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa fasaxay, waxaana Fahad Yaasiin iminku uu yahay xildhibaan dooran oo sugaya dhaarinta,
halkan waa nuxurka ee soo dhawaada daawadayaal.